halkan waa halkudhig news haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka. Gadiidka ka howlgala Muqdisho ayaa bilaha soo socda la sheegayaa in gabi ahaanba la weydoon kadib dhibaatooyin dhowr ah oo soo wajahay. waxaa qarka loo saaran yahay in magaalada Muqdisho la waayo gaadiid ka shaqeeya kadib markii ay go'een inta ugu badan wadooyinka magaalada caasimadda ah Muqdisho. dadweynaha ku nool gobolka Banaadir iyo wadayaasha gaadiidka ayaa sheegay in bilo kadib la weydoon gaadiidka ka shaqeeya Muqdisho haddii aan la helin xal degdeg ah si loo baajiyo khatarta soo wajahanay danka gaadiidka. saddexda dhibaato ee ugu daran isla markaana ka taagan Muqdisho ayaa kala ah: kow, inta ugu badan wadooyinka Muqdisho waxay u xiran yihiin dawladda Soomaaliya oo dhigtay ciidamo ka celiya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. labo, qaar kale oo kamid ah wadooyinka Muqdisho waxaa lagu jiray dhagaxaan iyo caratuur kuwaas oo aan suurtagal ahayn in gaadiidka iyo dadweynaha ay isticmaalaan. dhibaatada saddexaad ayaa ah inta soo hartay wadooyinka Muqdisho ay jareen roobab ka da'ay gobolka Banaadir. wadooyinka ayaa go'ay waxaana ka qodmay godad waaweyn oo hakiyay gaadiidkii isticmaali jiray halka qaarkood ay ciid buux dhaafisay. gaadiidka ayaa hadda isticmaala xaafado qardajeexa iyo wadooyin aan badnayn kuwaas oo dhagaxaan ku xiran maadaama aysan gudbi karin burbur awgiis. dawladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa ilaa haatan waxba ka qaban arrintan, waxaana lagu baaqay ciidda magaalada buux dhaafisay inay ka qaado iyo in dib u habeen lagu sameeyo wadooyinka roobka ku burburay. dhinaca kale wadooyinka xiran ayaa u muuqda kuwa aan la furi doonin iyadoo oo tani ay qayb ka tahay sugidda amniga ayna gacan ka geysteen in la yareeyo qaraxyadii baabuurta ahayd ee ka dhici jiray bartamaha Muqdisho. haddii aad nagu cusub tahay fadlan mar kale channelkan subscribe sar si aad u hesho warar ku saabsan dunida iyo gudaha Soomaaliya.